السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام halkan waxaad ku baranaysaa application muhiimad aad u ballaaran leh kaasoo markaa khaasatan muhiimadda ugu weyn u leh qofka baraha ee macalinka. marka applicationka la yidhaahdo Zoomit oo aynu gadaal ka baran doono insha Allah qaabka loola soo degayo, sida computerka loogu shubanayo, nidaamyada uu shaqeynayo, waxaasoo dhan. faa'iidada haddaba uu leeyahay applicationada kale uu kaga wanaagsan yahay maxay tahay? waxa uu kaga wanaagsan yahay qodobka koobaad oo ah zoomka, markaa soo dhaweynta, inuu markuu wax soo dhaweynayo nidaam ka wanaagsan nidaamka magnifierka uu adeegsanayo. qodobka labaad oo ah in uu leeyahay annotations, waxyaabo tilmaamayaal muujinaya oo aad wax ku tilmaamayso marka aad cid wax barayso, khaasatan computerka markaad wax ka barayso. waayahay qodobka markaa u dambeeya ee faa'iidada weyn waxa weeye inuu yahay application markaa leh shortcut, adoo computerka iskaga dhex jira oo shaqo iska wata oo aan software ahaan isaga soo kicin, ayaa shortcut wixii aad tilmaamaysay baad ku tilmaamaysa, ku soo saaraysa. maadaama faa'iidooyinka ballaaran leeyahay oo sida aan sheegay uu leeyahay qofka baraha, ama ha ahaado local qof wax ku bara amaba online, labada xaalaba ka uu qofku ku sugan yahay uu yahay application caawinaya. aynu u gudagala markaa nidaamyadiisa. basic shortcut halkan waxaynu ku soo galnay baseka, markaa shortcutyada baseka ee uu ku bilaabmayo applicationkan ku furfurmayo. qodobka koobaad waxayna leeyahay to start zooming mode, si aad zooming mode-ka u start garayso oo bilowdo Ctrl+1. Ctrl iyo 1 baad taabanay. tusaale haddaan Ctrl iyo 1 taabto wuu ku soo dhaweynaya. waxaynu isweydiinaa si haddaba loo celinaya amaba hore loogu soo wadi karaa soo dhaweynta. waa qodobka labaad. marka waxaad samaynaysaa Ctrl iyo up oo markaa hore ugu soo dhaweynayo, amaba down arrow markaa soo dhaweynta amaba celinta. up iyo down arrow. tusaale qofka aan markaa garanayn up iyo downka aan ka hadlayo, aan wax yar tuso. markaa up iyo downka markaa lagu sheegaya waxa weeye waa kan iyo kan markaa hoose, arrowyada uu computerku markaa leeyahay ayaa up iyo down. upna waa kaa sare, downna waa kaa hoose. haddaynu halkaa kaga soo baxno intaa to draw well zoomed in, inaad wax sawirto haddaba adiga oo markaa zoom sameeyey, sidaad markaa wax u sawiri kartaa. left click baad kusoo saari. tusaale imika zoom baan kusoo dhaweeyey, saan wax u qori karaa. marka left click taabo, dhinaca bidix ee mouseka markaa taabo, kadib wakaa waxaad doontaad qoraysaa, ama tegas ha noqdo ama wax kale ha noqdo. kasoo gudub haddaba. qodobka xigaa waxa weeye to draw well not zoomed in, inaad wax sawirto aadan waxba soo dhaweyn. taana waxaad samaynay Ctrl iyo 2 taabo, wakaa waxaad doontaad qori kartaa markaa ood samayn kartaa. qodobka xigaa waxa weeye to exit zoom mode, si aad uga baxdo exit oo markaa zoomkan aad kusoo dhaweysay, si aad uga baxdo escape taabo. qodobada wayna uga gaarsiinaya si aan waqti badan aan markaa aanu u qaadanin fahanka amaba ka hadalka applicationkan, maadaama qodobadiisu yara badan yihiin. qodobka xigaa waxa weeye live zoom mode, inaad zoom mode live ka samayso. marka waa ka arrowga wata. imika tusaale kan arrow ma wato, arrowba ma wadatid. qodobka marka arrowga wadanaya waxa weeye Ctrl iyo 4 waa zoom markaa arrowgeedii iyadu markaa wadanaysa. halkan maxay ku aragnaa? arrowgii baynu ku aragnaa, halkaa doontaad ku tilmaami. tanna waa Ctrl iyo up iyo down markaad ka noqonayso, laakiin markaad toos uga wada noqonayso Ctrl iyo 4 baad ka noqonaysa. la soco haddii zoomtu kaaga dhegto dib ha u arkin, Ctrl iyo 4 dib u taabo. qodobka xigaa waxa weeye markaa inoo raacaa waa qodobka toddobaad oo ah to zoom in and out during live zoom mode, Ctrl+up down. waa intaan hadda markaa qodobkan hore idinku soo sheegay markaad soo dhaweyso, si aad u noqoto Ctrl qabo, up iyo downna markaa taabo kii marka aad rabto.
halkaa 7 qodob ee baseka markaa u habaynu iskula aragnay aynu u gudubno qodobada markaa waaweyn. qodobada waaweyn kow waxa ka shortcuts to work with pen. shortcutyada aad markaa qalinka markaa ka shaqaysiinayso aad adeegsanayso. control iyo 2 hortaan taabto aan balkeeno qoritaankii. haddaan u baahanahay midabka red waxaan taabanaya xarafka R, red buu noqonaya. haddaan blue u baahanahay xarafka waxaan taabanaya blue. iminka B baan taabanaya waka. xarafka B baan ka wadaa, okay? B markaa taabato waka waa blue. waayo haddaan yellow u baahanahay way baan taabanaya. haddaan green u baahanahay orange or pink mid kasta xarafkiisan taabanaya. tusaale aan green taabto orange iyo pink. kasoo gudub haddaba erasing marka wax la masaxay haddaba. tusaale waxbaad iminka oo kala qortay halkan oo kale wax ku sawiray marka masaxay control iyo circle leh sidii horeba aad u adeegsan jirtay marka wax ka noqonayso word oo kale. erase all marka aad dhowr wax aad qoray marka aad doonayso inaad tirtirto dhowrkii wax waa kaliya ama escape. kasoo gudub qodobka dambe muxuu leeyahay increase decrease pen width. way qalinka marka balciisa marka yareynayso ama aad weyneynayso waxaad samaynaysaa control plus up iyo down arrows. way balca waxa laga wadaa imika waxaan sawiraya waxa yara dhuuban. haddaan ballaarinayo waxaan taabanayaa control dadana abka sare ee marka ayaan taabanaya waxa uu soo weynaaday waxa aad u weyn buu imika sawiraya. haddaan yareynayo control iyo down baa marka la dhacaya. way halkaana waxaynu ku fahnay qodobada penka marka aynu ka gudubno. halkan waxaynu ugu soo galnay shortcuts for highlight and side. shortcutyada marka la adeegsado markaad highlighting samayso markaad wax qorayso waa qodobada ugu muhiimsan ee faa'iidada ugu ballaaran leh ee qof kastaaba markaa danaynayo khaasatan qofka markaa macalinka. waaye haddaba maadaama ay yihiin qodobada ugu muhiimsan waad sawiran kartaa sidoo kale waad qoran kartaa laakiin qodob baan markaa u qeexaya u dul istaagaya. aan u galo qodobka koobaad. qodobka koobaad wuxuu leeyahay to draw a straight line. si aad straight line u samayso line toos shift well draw shift qaba marka aad wax sawirayso marka maxaan leeyahay control iyo 2. way haddaan saa line toos sameeyo anigu inkoo kale waxba qalqaloocanayo kulliba wax yar baa ku jiri. marka si aad mid toos u samayso waxaad qabataa shift qabo mid toos ah ku samaysmaya waka. faracyada markaad samaynayso oo kale waad ka samaysani dhinaca doonta aad u jiidiyo markaas straight ku noqonaysa. kasoo gudub qodobka xiga muxuu leeyahay to draw a rectangle control plus left mouse button. si aad rectangle markaa u samayso rectangle afar geesa markaa waa qodobka aadka muhiimadda ballaaran u leh. waxaad samayn tusaale halkan oo kale highlight ku samaysa control kaliya qabo left click haddaad la qabatana waa okay. haddaad iska daysana wuu ku sawirmaya waka ilama intaadu markaa aad muujinay. way kasoo gudub qodobka xiga muxuu leeyahay qodobka xiga wuxuu leeyahay to draw an ellipse. si aad u samayso markaa ellipse tool oo ah markaa goobadii markaa taabanaysa computerka plus left mouse button press to west adoo markaa laba jeer riixaya. waa qodobka ugu yar adag ee ugu hawsha badan aynu isla eegno marka taabkaas markaa taabani kadib waxaad taabanaysaa arrowga markaa dhinacan xiga adoo laba jeer ku dhufanaya left clickna markaa waad la qabanaysaa adoo laba jeer maad ku dhufanaysaa waka goobadii waka inoo sawiray. kasoo gudub qodobka markaa goobada. way halkan waxaan ugu soo galnay qodobka la yiraahdo to draw an arrow markaad samaynayso ee arrow markaa ku tilmaamayso shaygii control plus shift plus left mouse button intaasaad isku qabanay. way control shift baan qabanayaa waka madaxiisu xaggaas u aadayaa. sidoo kale aan waxa iyagu jiidi karaa halkan doonan wareejin karaa xajmigiisana wad weyneyn kartaa adoo control iyo markaa ku weyneynaya ab arrow xajmigiisa wad yara weyneyni. okay aynu ka gudubno qodobka inoo xiga waxa weeye to type. marka aad haddaba wax qorayso miyaad u baahnayn text inaad qoraal samayso. qoraalka markaas si aad qoraalka u samayso drawing mode-kii gal taabo markaa qoraalkii samee. qoraalka markaa samee qoraalka wad weyneyn kartaa nidaamyadiisu isbedel la ballaaran bay leeyihiin. fartana oo aynu arki doonaa insha Allah halka iyadan laga bedelayo.
waaya qodobkan aynu iskaga gudubno waxaa halkan ugu soo galnay markaa for a white screen markaad screen cad doonayso samuurada dadka wax ugu qorto control iyo 2 horta marka hore muurkii ku keen w kaliya markaa taabo xarafka w way tegiska markaa halkaasaad ku qorani wada weynaysan kartaa tegiska intaad doonto haddii waxoogaa yara qurxisanayso markaa okay waad qurxisan kartaa angoodadina wax yar inoogu muraajiciyo markaa waayahay tiidaada markaas ka taabanayso tegiska iska yare tegiska waayahay shirkadii Toyota kale aynu ku qoraynaa waayahay marka halkan waxaan iskula aragnay tegiska iyo nidaamkiisa waayahay muxuu yahay qodobkeena xiga waxa weeye for a black screen black markaa samuurad black baan baahnay markaad leedahay ee aad doonayso waad heli kartaa iyadana muurkii markaa gal control iyo 2gaagii kee taaba xarafka kee wadigaa markaa yimi black markaa black waxaa kusoo baxaya oo kale tusaale midabka markaa ah yellowga markaa qoraalkaaga halkaas ka samaysan kartaa halkaa markaa aynu qodobka u dambeeya halkaa kaga baxno halkan waxaa inoo soo galay qodob aada muhiim u ah markaa isna ka kooban 3 qaybood waxa lagu yiri markaa samada useful shortcut useful markaa shortcut iyo kale iyaguna ah oo faa'iido leh halkan waxa lagu yiri countdown timer baad markaa helaysaa control plus 3 way countdown kanu faa'iidada koowaad uu leeyahay waxa weeye macalinka local oo kale wax ku dhigaya ama online ku dhigaya markuu ardayda leeyahay inta wax su'aalo oo xiisada gabagabeeyo wuxuu adeegsanaya countdown timerka markaa aan halkan markaa ka tuso control iyo 3 waka inta wax su'aalo ani questions way sawirka waad iska bedeli kartaa mid kale aad ka dhigan kartaa waynu isla arki doonaa isna insha Allah mirdada waqtigan waynu arki doonaa si loo bedelayo way qodobka labaad oo ah markaa save the annotated screen control plus s inaad save garayso wixii annotation-ka aad ku samaysay ee aad tusmada ka bixisay qodobkan muhiimad ballaaran wuxuu u yeeshaa macallimiinta buugta qoraysa ee dhanka computerka markaa waliba ka qoraysa waayahay halkanna waa copy the annotated screen waa qodobka saddexaad control plus c isna waxa weeye waa qodob aan muhiimad aad u weyn lahayn laakiin isna ah in copy aad ka qaadato wixii markaa aad save garaysay oo kale tusaale way maxaan leenahay imika kale control s laakiin intaanad control s oo dhan bal waxtay marka hore annotation ku samee tusaale imika intaasan ku sameeyay markaas leeyahay control s wuxuu ugu leeyahay waan save garaynayaa magaca u bixiso markaas aan kugu daayaa position oo dhigan waa marka aad doonayso inaad xog kala hadho halkan tigta saaro markastaba suuntu isaga ka joogi marka qodobka ugu ka soo gudub halkan kaale break time ka markii la qaadanayay minuteska halkan waxayna tusaya minutesku markayna tusaya 3 minutes baa ku jira waad ka badsan kartaa way intaaba u daaba waayahay qodobka aad ka aadaysa kale wax weeye advanced aad markaad advanced aadid sida tan kugu soo baxo halkan play zone on expiration cod yar baad samaysanaysaa marka uu sii dhamaanayo waqtigu markaa baxaya haddii aan cod u baahnayna waad ka maarmi kartaa
halkan opacity-gu buu inoo sheegayaa oo ah markaa khafiif miyaynu ka dhignaa mise waanu yara adkeynaa midabka. halkanna tiradu ma bartankay kasoo bixi computerka dheeg intaad doonto adigu halkaad jeclaysanay unbaad ka dhigani. kasoo gudub show background bitmapka yare markaa soo bixi doona background kasoo bixi. qodobka hadaba muhiimka waa qodobkan use image file as a background, inaad image adigu markaa soo qaadato oo aanaad ka desktopka isticmaalin. halkanna scale to screen aad tigta saarto oo markaa ku habboon screenka. halkaas soo fur sawirku halkuu ku yaalla ka soo qaado. tusaale anigu imika kanaan soo qaadanayaa. kabacdi maxaan leeyahay okay baan leeyahay marka control 3 taabo waka imika halkaas inoo tirinaya markaa tiradii oo ardayga maxaad leedahay any question intaa wax su-aalaa oo markaa dee su-aal ardayga weydiinaysa miya su-aal la qabaa leedahay ama baan idhahda ardaydii. halkaa markaa waxaa inoogu soo gabagaboobay zoom iyo faa'iidadeeda. halkaas aynu ku baranay shortcutyadeeda iyo nidaamyadeeda idil. waa idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.